madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar iyo mas'uuliyiin ka socotay dowladda federaalka Itoobiya ayaa waxay magaalada Jigjiga ay kaga qayb galeen munaasabad lagu daahfurayay barnaamijka nafaqada caruurta iyadoona ujeedada barnaamijkaasi uu ahaa sidii looga hortagi lahaa nafaqa darrada caruurta soo food saarta wariyaashayda nooga soo warramay magaalada Jigjiga ayaa faahfaahinta warkan inoo soo diray daahfurka wajiga labaad ee barnaamijka nafaqada heer qaran iyo kunka maalmood ee ugu horeysa nolosha aadamaha oo lagu qabtay madasha kulanada ee Kalutu xarunta madaxtooyada deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar marwada koobaad ee dalka Marwo Roman Tasfaye madaxweyne ku-xigeenka ahna wasiirka xafiiska horumarinta beeraha iyo kheyraadka dabiiciga ah Marwo Sucaad Axmed Faarax mas'uuliyiin kala duwan oo isugu jiray heer federaal iyo heer deegaan wakiilo ka socda hay'adaha bahwadaagta ee ka howlgala deegaanka madaxafiisyada xafiisyada caafimaadka iyo xirfadlayaasha xarumaha caafimaadka ee deegaanka waxana daahfurka wajiga labaad ee barnaamijka nafaqada iyo kunka maalmood ee ugu horeysa nolosha ilmaha ujeedadiisu ay tahay sidii guulo loo keeni lahaa loogana hortagi lahaa nafaqa darrada guulana looga soo hoyn lahaa ololaha iyo istaraatiijiyadaha lagu doonayo sidii loo heli lahaa bulsho caafimaad qabta iyo sidii ilmuhu marka uurku hooyada galo ilaa intuu ka gaadhaya 2 sano uu heli lahaa cunto isku dheeli tiran maadaama door muhiim ay ka qaadanayso caafimaad qabka maskaxeed midda jidheed iyo midda mustaqbal ee ilmaha waxaana warbixinadu ay tilmaamayaan in dalkani Itoobiya uu guulo balaadhan ka soo hooyay barnaamijka nafaqada iyo kunka maalmood iyadoo kor loo qaaday fahanka bulshada ay ku qotonta sidii barnaamijkan guulo looga keeni lahaa waxaana kulankan lagu daahfurayay wajiga labaad ee barnaamijka nafaqada iyo kunka maalmood ee ugu horeysa nolosha aadamaha ka hadlay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo salaan kadib tilmaamay in dalkani Itoobiya guulaha koola laga soo hooyay guud ahaan caafimaadka iyo ka hortagga cudurrada faafa iyadoo muhiimadda la siinayo barnaamijka nafaqada iyo kunka maalmood ee ugu horeysa nolosha aadamaha isagoo sidoo kalena xusay in deegaanka Soomaalida Itoobiya sanooyinkii u dambeeyay sidoo kale uu dadaal xoogan u galay sidii uu guulo uga keeni lahaa kor u qaadida caafimaadka bulshada gaar ahaan nafaqada ክብርት ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ሮማን ተስፋዬ የተከበራችሁ የፌደራልና የክልል አመራሮች የተከበራችሁ የከወረዳ የጤና ቢሮ ኃላፊዎች የተከበራችሁ የጤና ጥበቃ ተወካዮች የተከበራችሁ የአጋር ድርጅቶች ተወካዮች ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች ክቡራትና ክቡራን ከሁሉም አስቀድሜ በዚህ ሁለተኛው የብሔራዊ ስርዓተ ምግብ ፕሮግራምና የመጀመሪያዎቹ 1000 ቀናት ስርዓተ ምግብ ንቅናቄ ይፋ ማድረጊያ መድረክ ላይ ተገኝቼ ከፍተኛ ደስታ ይሰማኛል። marwada koobaad ee sharafta leh ee waddankeena Marwo Roman Tasfaye hogaaminta sharafta leh ee heer federaal iyo deegaanka madaxafiisyada sharafta leh ee xafiisyada caafimaadka degmooyinka deegaanka wakiilada sharafta leh ee wasaaradda caafimaadka wakiilada sharafta leh ee hay'adaha bahwadaagta iyo marti sharafta kalaba marwooyin iyo mudanayaal waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan hirgelinta barnaamijka nafaqada ee heer qaran iyo kunka maalmood ee ugu horeysa barnaamijkan የስርዓተ ምግብ መባዛትና የንጥረ ምግብ እጥረት ለእናቶችና ለህፃናት ህመም ብሎም ሞት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል እስከ 45% የሚሆኑ የህፃናት ሞት የሚከሰተው በስርዓተ ምግብ መዛባት እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ xanuunada iyo waliba dhimashada hooyada iyo dhallaanka waxa sababa walxaha nafaqada leh iyo cuntada oo yaraata sidoo kale daraasadyadu waxay muujinayaan in dhimashada dhallaanka 45% ay sababto cunno xumida dhallaanku haddii ay dhimashada ka badbaadaana cunto xumidoodu waxay dhallaanka u geysataa waxyeello weyn oo dhinaca jidhka iyo maskaxda ah waxayna sahashaa inay carruurta ku dhacaan cudurro badan oo kala duwan haddaba sanadkii ugu dambeeyay dawladdeenu barnaamijkan nafaqada dhallaanka waxay siisay fiiro gaar ah waxaana la xaqiijiyay hagaajinta barnaamijkan nafaqada cunnadu in ay faa'iido weyn u leedahay caafimaadka dhallaanka kobaca dhaqaalaha iyo horumarka dalkeennaba qorshayaasha horumarka waara ee dalkeennana muhiimad weyn ayaa la siiyey barnaamijka nafaqada dhallaanka በመሆኑ ለፕሮግራሙ ትግበራ በክልላችን በኩል ከፍተኛ ርብርብ እንደምናረግ በራሴና በክልሉ ህዝብ ስም ቃል የገባው አጋር ድርጅቶች እና ሌሎች ጉዳዩን የሚመለከተው አካል ሁሉ ለስራው የበኩላችሁ ድርሻ እንድትወጡ ጥሬን አድርጋለሁ። አመሰግናለሁ።
haddaba anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca shacabka deegaanka ayaa waxaan ballan qaadaynaa inaan dadaal adag gelin doono shaqooyinka barnaamijkan waxaana hay-adaha bahwadaagta iyo cid walba oo ay khusayso aan ugu baaqayaa inay ka soo dhalaalaan doorka kaga aadan hirgelinta barnaamijkan waanad mahadsan tihiin marwe romaan tasfaye marwada koowaad ee dalkan Ethiopia oo iyaduna barnaamijkan wejiga labaad ee nafaqadarrada heer qaran iyo 1000 maalmood ee ugu horeysa nolosha aadamaha ka hadashay ayaa iyaduna xustay in barnaamijka nafaqada iyo 1000 maalmood ee ugu horeysa nolosha aadamaha fiiro gaar ah la siiyay natiijooyin wanaagsan oo muuqdana laga soo hooyay guud ahaan dalka iyo deegaanadaba ከሁሉ አስቀድሜ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የሚካሄደውን የሥርዓተ ምግብ ፕሮግራም በታቀደና በተቀናጀ ሁኔታ ተግባራዊ እንዲሆን ለማስቻል በተዘጋጁት የክልላዊ የሥርዓተ ምግብ መርሃ ግብርና ከማስፈጸሚያ ስትራቴጂክ እርምጃዎች አንዱ በሆነው የህይወት የመጀመሪያዎቹ 1000 ቀናት ሥርዓተ ምግብ ማሻሻያ ዕቅድ በይፋ በሚበሰርበት በዚህ ክልላዊ መድረክ ላይ በመገኘቴ የተሰማኝን ልባዊ ደስታ እየገለጽ marwooyin iyo mudanayaal marka ugu horeysa waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan sida qiimaha iyo qaayaha leh loo soo agaasimay ee daafurka hirgelinta barnaamijka nafaqeynta caruurta ee dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya iyo ololaha nafaqeynta cuntada ee 1000 maalmood ee ugu horeysa barnaamijkan xubnihii hawsha soo wadayna waxaan leeyahay hambaliyo bogaad nabad ugu gaadheen madaxweynaha sharafta leh iyo ka qaybgalayaasha wadankeenu wuxuu dadaal xoogan ugu jiraa sidoo uu tirtiri lahaa cudurrada maskaxeed ee ay cunto yaridu ku keento dhallaanka sidii loo heli lahaa bulsho caafimaad qabta iyo waliba sidii loo xaqiijin lahaa horumarka arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha dalkeena intii uu socday kulankan lagu dahfurayay wejiga labaad ee barnaamijka nafaqada heer qaran iyo 1000 maalmood ee ugu horeeya aadamaha ayaa waxaa lagu soo bandhigay sooyaalka nafaqadarro ee hadda ka hor dalku taagnaa iyo qaabka hoos loogu dhimay nafaqadarradii ee loo xaqiijiyey cunto isku dheelitiran oo ay helaan carruurtu marka ay galaan uurka hooyada ilaa inta ay ka gaadhayaan 2 sano ugu yaraan ama ilaa 5 sano inta kadib madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa ay marwada koowaad ee dalku ay guddoonsiisay shahaado uu madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya ku noqonayo safiirka nafaqada ee deegaanka ambassador of nutrition waxaana madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uu tilmaamay in kulankan uu ahaa kulan aad iyo aad muhiim uga ah guulka keenida barnaamijka nafaqada iyo 1000 maalmood ee ugu horeysa aadamaha isagoo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar hooyooyinka ku baraarujiyay inay maanka ku hayaan sidii ay u siin lahaayeen carruurtooda cunto isku dheelitiran maadaama nafaqadu ay u horseedayso carruurta dhisidda maskaxdooda jidhkooga iyo mustaqbalkoogaba 1000 cisho ugu horeysa ilmuhu markuu dhasho 1000 cisho ugu horeysa inay ku xidhan tahay nolosha qofka intiisa dambe dhan tusaalahan hadaa tusaalaha sameeyo qofka waxa weeye 70 sano noolaanaya 70 sano haduu qofku noolaanayo wuxuu noolaanayaa 25000 iyo 200 oo cisho 25000 iyo 200 oo cisho 1000 cisho ugu horeeya ayay aas-aaska noloshiisa ku xidhan tahay marka hooyooyinka iyo aabayaasha iyo dhamaanteedba iyo maamulkaba iyo dawladaba waxa weeyaan inaan 1000 cisho hadda aan istaba qabano wixii hore horta uu tagay walibana hooyooyinku inay naaska siiyaan ilmaha 6 bilood ee ugu horeysa iyo 1000 cisho ku jiro naaska ayay ku jiraan waxa weeye fiitamiinada la raadinayo dhan cuntadan waxa weeye laga helayo marka 1000 cisho ugu horeysa weeyaan waxa aas-aaska ilmaha noloshiisa 25 kun ee dambe ku xidhan tahay taasna waxay ku xidhan tahay cunto kala gedisan la siiyo khudaarta caanaha iyo waxa weeyaan inagu walibana caanaheena waan haysanaa loo kala batay laakiin dad caanaha helay way jiriyaan dad khudaarta way helayaan way jiriyaan laakiin carruurta lama siiyo waxa nafaqada leh waa laga ilaaliyaa dadka waaweyn baa cunaa